Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noola socotaan. Halkani waa channelkeena Hoggaan Media oo alaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee dunida iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa maalinimo Sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 4 Abriil 2026. Qodobada ugu doorka roon ee tabinteena aan ku soo qaadan doono isla markaana aad ku daawan doontaan haddii Rabbi uu qadaro waxaa ka mid ah Iran ayaa soo riday diyaaradda dagaal ee caanka ah isla markaana nooceedu uu yahay F-35 uu leeyahay Mareykanka. Haddaba faahfaahino dheeraad ah iyo macluumaad xasaasi ah ayaan idinkaga haynaa qodobkaas. Sidoo kale kooxda hubeysan ee Lubnaan ee Xisbullah ayaa ku dhawaaqday in ay qaaday 60 weerar oo lagu beegsaday bartilmaameedyo Israa'iili ah muddo 24 saac gudahood ah. Haddaba waxaan ku eegi doonaa macluumaadka iyo khasaaraha ka dhashay weeraradaasi. Dhanka kale warar ayaa soo baxaya isla markaana tilmaamaya in Iran ay u badan tahay in sidoo kale ay soo riday diyaarad kale oo dagaal ay leeyihiin Mareykanka iyo Israa'iil. Falanqeyn kooban ayaan ku dul istaagi doonaa. Dhanka kale hay'adda NASA oo soo bandhigtay sawiradii ugu horeeyay ee cajiibka ahaa ee dhulka laga qaaday safarka dayax-gacmeedka ee Artemis 2. Waxaan idinla wadaagi doonaa qodobkaas oo faahfaahsan iyo sawirada laga soo qaaday meeraha dhulka. Isla sidaas oo kale waxaan idinla wadaagi doonaa markab Faransiis oo noqday kii ugu horeeyay oo reer galbeed ah oo mara marinbiyoodka Hormuz. Qodobadaas iyo qodobo kale oo noo soo socdaan ayaan ku qaada dhigi doonaa tabinteena. Balse intaan u gudgalin marka hore waxaan ka codsanayaa muuqaalka haddii uu soo gaaro fadlan like noo saar. Haddii aadan ka mid ahayn bahdeena fadlan nagu soo biir oo channelka subscribe noo dheh isla markaana gambaleelka furo ama rukumo si ay kuu soo gaaraan xogihii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida. Magacaygu waa Hashim Adam. Ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Hagaag haddii aan ku bilaawno qodobkeena ugu horeeya ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegtay in hawada ay ka soo riday diyaarad labaad oo dagaal oo casri ah isla markaana nooceedu uu yahay F-35 Lightning II ah taas oo ay leedahay dowladda Mareykanka xilli ay ku duuleysay baaliyiri hawada bartamaha dalka Iran. Haddaba IRG waxay jimcihii ku dhawaaqday in diyaarad labaad ee F-35 ah lagu burburiyay hawada bartamaha Iran kadib markii ay beegsadeen nidaam cusub oo horumarsan oo difaaca hawada ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee IRGC. Waxay sidoo kale sheegtay in diyaaradda la burburiyay ay ka tirsaneed cutubka diyaaradaha dagaalka ee RAF ama RAF loo yaqaano. IRG waxay intaa ku dartay in diyaaraddii hawada soo gashay si buuxda loo burburiyay isla markaana ay ku dhacday dhulka. Bayaan ka soo baxay IRGC ayaa lagu sheegay in 12 saacadood ee u dambeeyay ay tani tahay diyaaraddii labaad ee dagaal ay soo rideen difaaca hawada ee IRG. Sababtoo ah diyaaradda ayaa si aad ah u burburtay oo qaybo badan u kala daatay. Weli wax xog ah lama hayo waxa ku dhacay duulihii saarna. Dhanka kale Mareykanka iyo maamulka Israa'iil ayaa bilaabay olole military oo ballaaran oo ka dhan ah Iran kaas oo aan horey loo sii shaacinin kadib markii la dilay hogaamiyihii kacaanka Islaamiga ahaa Cali Khamenei iyo sidoo kale saraakiil sare oo military iyo dad rayid ah. Dhacdadaas oo dhacday 28 Febraayo. Weeraradaas ayaa isugu jiray duqeymo ballaaran oo cirka ah kuwaas oo lagu beegsaday goobaha militariga iyo sidoo kale goob rayid ah meelo badan oo ka tirsan Iran ah. Haddaba duqeymahaasi waxay sababeen khasaare naf iyo maalba leh iyadoo sidoo kale si weyn loo waxyeelay kaabayaasha dalka. Jawaab ahaan ciidamada qalabka sida ee Iran ayaa qaaday weeraro argoosi ah iyagoo ku garaacay gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ee droneska. Saldhigyo iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil ee ku yaala dhulalka ay Israa'iil haysato iyo sidoo kale saldhigyo kale oo gobolka ku yaala. Hagaag geesta kale Iran oo laga yaabo in ay soo riday diyaarad kale oo dagaal oo Mareykanka iyo Israa'iil ay leeyihiin. Cadeymo ay heshay Tasnim News Agency
ayaa muujinaya in ay suurtagal tahay in Iran ay sidoo kale soo riday diyaarad kale oo dagaal oo cadow ah, taas oo ay wada leeyihiin Mareykanka iyo Israa'iil. Sawiro ay heshay wariye ka tirsan Tasniim ayaa muujinaya qaybo ka mid ah burburka diyaaradda, kuwaas oo la sheegay in ay cadeen u yihiin dhacdadani. Wariyaha arrimaha militariga ee Tasniim ayaa aaminsan in maadaama sawirka lagu arkayo hal dhuun oo qiiq matoor ah, ay u badan tahay in diyaaradda la soo riday ay tahay F-16 ama F-16 Fighting Falcon ama F-35 ah, balse ay u badan tahay in ay tahay F-16. Saacado ka hor dhacdadani, dhowr diyaaradood oo dagaal ah ayaa dulmarayay magaalooyin kala duwan oo dalka ku yaala, oo ay ku jirto Tehran, markaas oo si lama filaan ah ay ula kulmeen rasaas culus oo ka timid difaaca hawada ee ciidamada Iran. Diyaaradahan qaarkood waxay isku dayeen baa la yiri in ay ka baxsadaan rasaasta difaaca hawada iyadoo sii daayay flyeryo ama qalab lagu marin habaabiyo gantaalada, balse cadeymo jira waxay tilmaamaan in mid ka mid ah diyaaradahaasi laga yaabo in la soo riday. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadani weli si rasmi ah looma xaqiijinin. Hagaag dhanka kale, Xisbullah oo 24 saac gudahood ku qaaday 60 weerar oo ka dhan ah Israa'iil. Kooxda hubeysan ee Lubnaan ee Xisbullah ayaa sheegatay in 60 weerar ay ku qaaday bartilmaameedyo Israa'iili ah oo 24 saac gudahoodna ay ku qaaday. Kooxdan waxay bayaan daba joog ah ay ku sheegtay in weeraradani ay yihiin difaac loogu jiro Lubnaan iyo shacabka dalka, iyadoo tixraacaysa duqeymaha Israa'iil ku hayso dalka tan iyo 2 Maarso. Weeraradii ugu dambeeyay waxay tirada guud ee howlgallada ay Xisbullah fulisay tan iyo 2 Maarso ka dhigeen 1250 weerar, sida ay tirkoob ku samaysay wakaaladda wararka ee Anadolu Agency. Xisbullah waxay sheegtay in ay beegsadeen 6 deegaan oo ku yaala waqooyiga Israa'iil oo ay ka mid yihiin Kiryat Shimon oo 3 jeer ah, Mitalu oo 2 jeer ah, iyo Evin Menjam. Waxaa kaloo ka mid ah Beit Hillel iyo Avivim iyo Nahariya. Kooxdu waxay kaloo sheegtay in ay weerareen 40 goobood oo ku sugnaayeen askar iyo gaadiid militari oo Israa'iili ah, kuwaas oo ay ku jiraan 25 ku yaala koonfurta xuduudda Lubnaan iyo 15 gudaha waqooyiga Israa'iil ah. Xisbullah waxay sidoo kale sheegtay in gantaal dhulka ilaa iyo hawada ay ku rideen helikabtar Israa'iil oo ku dulmaraysay magaalada xuduudda ee Raymiyah, taas oo ku qasabtay in ay dib u gurato. Hagaag sidoo kale waxay sheegtay in ay si toos ah u garaaceen 2 taangi oo nooca Markava loo yaqaano oo ku dhow magaalooyinka Khayam iyo Qantara, iyo sidoo kale cagaf military oo nooca D9 ah oo ku sugnaa aaga Tahrir Triangle. Intaa waxaa dheer, Xisbullah waxay sheegtay in ay weerareen 7 saldhig oo ku yaala waqooyiga Israa'iil oo ay ku jiraan kaabayaal ku yaala Kiryat Ata iyo aaga Karayota iyo deegaanka Karamayl. Bartilmaameedyada kale ee la sheegay waxaa ka mid ahaa goobo madaafiic oo ku yaala Kibribet Maz iyo sidoo kale saldhigyada militariga ee Amayd, Filon iyo Dado, iyadoo Dado uu yahay xarun taliska waqooyiga ee ciidamada u dhow ciidamada Israa'iil oo ku dhow magaalada Safid. Warbaahinta Israa'iil ayaa horey u sheegtay in 6 qof ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan 2 askari kadib weeraro iyo iskahorimaadyo hubeysan oo ka dhacay waqooyiga Israa'iil iyo koonfurta Lubnaan. Israa'iil ayaa tan iyo 2 Maarso ku waday duqeymo culus oo cirka ah oo ay ku hayso Lubnaan, isla markaana waxay bilowday weerar dhulka oo koonfurta ee dalka ka socda kadib weerar xuduudda ka gudbay oo Xisbullah ay qaaday. Mas'uuliyiinta Lubnaan waxay sheegeen in weerarada Israa'iil ay ilaa iyo hadda sababeen 1345 qof oo dhimasho ah iyo 4040 qof oo dhaawac ah. Waa tahay geesta kale, haddii aan eegno, NASA oo soo bandhigtay sawiradii ugu horeeyay ee cajiibka ahaa ee dhulka laga qaaday safarka dayaxa Artemis 2,
hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA loo yaqaano ayaa soo bandhigtay sawiradii ugu horeeyay ee laga qaaday gudaha dayax-gacmeedka Orion spacecraft kaas oo ay hadda saaran yihiin 4 cirbixiyeen oo ku guda jira safar ay ku wareegayaan dayaxa. Sawir la shaaciyay Jimcihii ayaa taliyaha howlgalka Reid Wiseman ku qaaday muuqaalka ETH isagoo ka dhex arkayay daaqadda kabsalka. Sawirkaas waxa uu muujinayaa dhulka oo ay daboolayaan daruuro ballaaran oo si qurux badan u kala firdhisan, taas oo u eg in meeruhu ka soo baxayo meel ka baxsan dayax-gacmeedka, iyadoo kooxda cirbixiyeenadu ay sii wadaan safarkooda. Sawir kale ayaa muujinaya dhulka oo dhan, badihiisa iyo qaaradihiisa oo si cad u muuqda. Waxaa xitaa sawirka ka dhex iftiimaya iftiin cagaaran oo loo yaqaano auror oo hawada sare ka ifaya. Subaxnimadii Jimcaha, Wiseman iyo saaxiibadiisii waxay joogeen qiyaastii 100,000 oo mayl oo u dhiganta 160,000 oo kilomitir oo ka fog dhulka, iyagoo si xawli ah ugu sii dhowaanaya dayaxa, halka ay weli ay u harsan tahay qiyaastii 160,000 oo mayl ama u dhiganta 258,000 oo kilomitir. Sida qorshuhu yahay, waxayna gaari doonaan agagaarka dayaxa maalinta Isniinta ah. 3 cirbixiyeen oo Mareykanka ah iyo 1 cirbixiyeen oo Kanadiyaan ah ayaa ku wareegi doona dayaxa kabsalka Orion, kadibna dib ugu soo laaban doona dhulka iyagoo aan ku degin dusha dayaxa. Dayax-gacmeedka waxaa lagu hagaajiyay jihadiisa safarka kadib markii shaqaaluhu shideen matoorka weyn ee Orion habeenkii Khamiista. Waan ogaa in tani ay tahay waxaan arki doonaa, ayay tiri khabiir howlgalka Kristen Koch lagu magacaabo oo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee ku wareegta dayaxa, iyadoo la hadlaysa ABC News habeenkii Khamiista iyada oo loo marayo muuqaal. Laakiin waxba kuma diyaarin karaan qofka aragtida neefta ka qaadaysa ee aad ku aragto meeraha aad ku dhalatay oo mar iftiinkiisu u ekaanayo maalin cad, marna habeenkii dayaxu ka dul ifayo oo ay qurux badani ay iftiimayso. Anigu si gaar ah ayaan ugu faraxsanahay in aan aragno muuqaal la mid ah marka aan u dhowaano dayaxa. Dabcan ugu dambeyntii waxaan rajaynayaa safarka kadib dib u noqoshada gurigeyga, ayay hadalkeedii raacisay. Waad qurux badan tihiin, ayay si raacisay. Howlgalkan ayaa hadda galay maalintiisii 3aad ee safar qorshihiisu yahay in uu socdo 10 maalmood. Maalinta 6aad ee howlgalka ayaa ah maalinta ay cirbixiyeenadu dayaxa si dhow u dulmari doonaan. Markaas ayaa dayax-gacmeedku gaari doona masaafada ugu dhow ee dayaxa, taas oo u dhaxaysa qiyaastii 4,000 ilaa 6,000 oo mayl, isla markaana u dhiganta 6,450 ilaa 9,650 kilomitir oo ka sareysa dusha dayaxa. Cirbixiyeenadu waxay ku wareegi doonaan dhinaca kale ee dayaxa, dhinaca aan dhulka laga arki karin, taas oo ka dhigaysa in ay noqdaan dadkii ugu horeeyay ee sida u fog u gala hawada si qoto dheer in ka badan 50 sano. Inta ka horeysa marxaladaas, kooxda safarka ku jirta waxay tababar ku sameynayaan kormeero cilmiyeedyo ay qorsheynayaan in ay sameeyaan marka ay dayaxa u dulmarayaan. Flyby waa marka dayax-gacmeedku ku wareego meeraha ama dayaxa isaga oo aan ku degin, isla markaana ka faa'iideysta cufisjiidka si uu jihada u bedelo una bilaabo safarka soo noqoshada. Marka ay dayaxa ku wareegaan, dayax-gacmeedku wuxuu ka faa'iideysan doonaa cufisjiidka dayaxa si dib ugu soo laabto dhulka. Waxaana la filayaa in kabsalku ku soo dhaco badda Pacific Ocean meel u dhow xeebta magaalada San Diego 11 Abriil saacadda 8 fiidnimo waqtiga bariga ee Mareykanka 10 Abriil. Cirbixiyeenada safarkani ma ahan oo kaliya howl farsamo oo saynis ah, balse sidoo kale waa safar shakhsi ah oo qiiro leh. Aragtida dhulka oo laga daawanayo hawada sare ee qoto dheer waxay qofka xusuusinaysaa in bani'aadamku hal asal wada leeyahay, sida uu sheegay Victor Glover oo noqday cirbixiyeenkii madow ee ugu horeeyay ee ka baxa wareegga hoose ee dhulka. Na rumaysta, aad baad u qurux badan tihiin, ayuu Glover u sheegay ABC, isagoo sharaxaya sida dhulka ugu muuqdo hawada sare. Marka halkan laga soo eego, waxaad u muuqataan hal shay oo kaliya, Homo sapiens. Dhammaanteenu waa isku dad, meel kastoo aan ka nimid ama sida aan u egnahay
mid kasta oo naga mid ahi. Sabab baa loo leeyahay marka waxyaabaha waaweyn ee aadanuhu sameeyo looga yeero moonshots. Howlgalkani wuxuu ina tusay waxa aan qaban karno marka aan kala duwanaanshaheena isku keenno. Xogaheena wada isticmaalno si aan u gaarno wax weyn ayuu ku soo gabagabeeyay. Hagaag. Ugu dambeyntii markab Faransiis oo noqday kii ugu horeeyay ee reer galbeed ah oo mara marinka Hormuz, iyadoo aan weli la gaarin heshiis rasmi ah oo lagu nidaaminayo marinka Strait of Hormuz. Haddana xaaladda hadda jirto waxay u muuqataa mid Iiraan ay go'aaminayso maraakiibta mari kara iyo kuwa aan mari karin. Jimcihii waxaa marinka si guul leh ugu gudbay markab Faransiisi ah, taas oo ka dhigtay kii ugu horeeyay ee reer galbeedka ee halkaasi mara tan iyo markii dagaalka uu bilowday qiyaastii 5 toddobaad ka hor. Sababta markabkaas gaar ahaan loogu ogolaaday in uu maro weli si cad looma oga, balse waxaa jira warar sheegaya in Iiraan ay lacago ka qaado maraakiibta doonaya in halkaasi ay maraan. Iiraan waxay sidoo kale u ogolaatay maraakiib kale oo ka kala socda dalal ay u aragto saaxiibo sida Japan, Thailand, Greega, Malaysia, China, Pakistan, Iraq iyo India. Hase yeeshee maraakiibta la xiriira Mareykanka, Israel iyo Britain ama UK iyo dalal kale oo Iiraan u aragto cadow ma helayaan marin. Caadi ahaan marinka Hormuz waxaa maalin kasta mara qiyaastii 100 markab oo labada jiho u kala socda. Hase yeeshee hadda waxaa si dhib yar u socda maraakiib tiro yar, halka qiyaastii 2,000 ilaa 3,000 markab ay saf ugu jiraan inay maraan. Si kastaba ha ahaatee, warar rajo leh ayaa soo baxaya maalmahan kuwaas oo sheegaya in Oman iyo Iiraan ay ka shaqeynayaan nidaam lagu furi karo marinka muhiimka ah. Weerar kale oo cirka ah lagu qaaday maleeshiyo Ciraaq. Horey ayaa loo sheegay duqeyn lagu qaaday xarunta guutada 40-aad ee ciidamada Popular Mobilization Forces ee magaalada Mosul. Kadib ilo ka tirsan booliska Ciraaq ayaa sheegay in weerar kale oo cirka ah lagu qaaday xarunta BMF ee magaalada Al-Qaym ee galbeedka dalka. Dhinaca kale, farxad iyo dabaaldegyo ka dhacay Iiraan, diyaaradii ugu horeysay ayaa la soo riday aroortii hore ee Jimcaha, waxaana weli socda raadinta duulihii saarnaa. Mas'uuliyiinta ayaa shacabka ku sugan koonfur galbeed Iiraan ka codsaday in ay gacan ka geystaan baadigoobka. Diyaaradda kale waxay ku burburtay meel u dhow marinka Strait of Hormuz, waxaana militariga Iiraan ay sheegeen in ay iyaguna soo rideen. Dhammaan bayaanada laga soo saaray Iiraan waxay ahaayeen kuwa muujinaya kalsooni. Dabaaldegyo ayaa ka socda wadooyinka kuwaas oo habeen kasta ka dhacayay tan iyo markii dagaalka uu bilowday, balse habeenkan waxaa lagu arkayay firfircooni iyo xamaasad ka badan sidii hore. Dad badan oo Iiraaniyiin ah ayaa sheegay in tani ay tahay wixii ay ballan qaadeen tan iyo maalintii koowaad ee dagaalka, in ay soo bandhigi doonaan yaab cusub oo muujinaya awoodaha militari ee aan horey loo adeegsanin. Waxay sidoo kale ku hanjabayaan weeraro kale iyagoo leh Mareykanka si weyn ayuu u dhayalsaday awoodda ciidanka Iiraan iyo IRGC. Fariinta ka muuqata gudaha Iiraan waa mid adkaysi, iska caabin iyo dareen guul leh. Dad badan ayaa u arka arrintan waxqabad weyn oo ay sameeyeen ciidamada Iiraan, taas oo sare u qaaday niyadda ciidanka iyo taageerayaasha dowladda. Faahfaahinta la bixiyay weli waa kooban tahay, balse mas'uuliyiinta waxay xaqiijiyeen in ay 2 diyaaradood la soo riday, waxayna sidoo kale sheegeen in dhowr helikobtar iyo diyaarado aan duuliye lahayn drones la bartilmaamsaday, qaarna la soo riday. Iiraan waxay ku adkaysanaysaa in arrimahani caddeyn u yihiin in ay sii wado dagaalka, isla markaana sida ay sheegayaan ugu dambeyn iyagu guusha ay ka gaari doonaan isbahaysiga kala dhaxeeya Mareykanka. Haddii halkan aad nala soo gaartay, run ahaantii waan kaaga mahadcelinaynaa. Mar kale haddii aan ku xasuusiyo, muuqaalka like noo saar oo la wadaag asxaabtaada. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Tan iyo intaan tabinteena xigta ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah.